ninka dhibaysa cidlada ka dhuma midnimo dhibatuu ku sii dhagayay dhagaha ugu rida ilaa la dhacay halkani waa bartamaha khayriyaha magaalada Hargeysa dad aad u tiro badan baa isugu soo baxay waxay u dabaaldegayaan aqoonsiga Soomaaliland ay heshay waxa doonaa dareenkooda inaan wax ka weydiino wala soo dhawow maanta waxa joogta Soomaaliland oo la aqoonsaday oo waddanka goor ay ku dhawaaqay xaga ga dhigan tahay waxay iga dhigan tahay maanta horta waan salaamayaa dhammaan bulshada TV iyo saxaafadda oo dhan maanta kala waa maalin weyn dhammaan Soomaaliland bay ku weyntahay aad baan u faraxsanahay la xalay ma naseexan waxaan tahniyad u dirayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay 1960 bay naga yara talowday maanta mar labaad ay naga talaabanay dhammaan Soomaaliland oo hal adkeeyaan leeyahay waxaan Soomaaliya qadaadweynta waxaan u dirayaa waxaan leeyahay diyaada naga seexdaan leenahay Soomaaliland way dhaqaaqday madaxweyne Netanyahu waa ugu horeeyay madaxweynihii Soomaaliland ictiraaf noqday waxaan ku hambalyeeynayaa geesinimada waxaanu nahay laba dal oo jaara laba dal oo xiriir ganacsi ka dhaxeeyo xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo madaxweynayaasha kale ee ugu horeeya Trump iyo wadamada kale Ingiriiska iyo Imaaraadka oo iyagana waxa la sida Netanyahu ku dhiirada Abiy Ahmed oo isna oran jiray waan idin ictiraafaya Abiy oo naga ciyaarto wadanka Afrika ugu horeeya ku dhawaaqa noqotay oo la caawan ku sugaynaa soo waxa la way taa dhaqaaqday iska kaalaya ya aga tagina ma garanaysa waxaan ku soo gabagabeeyaa anu waxaan ahaa ciyaalkii Hargeysa ku dhashay maxamed xaaji ibraan cigaal baan khayriyadan maanta aan taaganahay ayaan xasuustaa May 1999 waxa uu ka yiri Soomaaliland boqol sano oo dambe haddii la ictiraafi waayo Soomaaliland way jiraysaa marka waqtiga waxa jirtay xilli wadamadu ay dabadii noo soo horjeediyeen laakiin maanta waxaan arkayaa ictiraafkii Soomaaliland anigoo taagan marka shucuurtaydu aad bay u kacsan tahay waxaan leeyahay ninka dhibaysa cidlada ka dhuma midnimo dhibatuu ku sii dhagayay dhagaha ugu rida ilaa la dhacay